Zainab Cabdalla waa gabadh Soomaaliyeed oo ku nool dalka Mareykanka. Waxay ka qalin jabisay jaamacadeeda oo ay ku beegnayd saacado ka hor markii ay umushay. Taasi kama ay joojin inay ka qayb gasho munaasabadda qalin jabinteeda. Iyadoo aan laga dareemayn xanuunkii iyo fooshii ay soo martay ayaa waxa ay farxad ka muuqato uga soo muuqatay goobtii ay munaasabaddu ka dhacaysay. Dhacdadan gabadha ayaa waxay soo jiidatay warbaahinta dalka Canada iyadoo aan markii dambena ay si aad ugu faaftay baraha bulshada gaar ahaanta Soomaalida. aad baan u faraxsanaa waxaanan ilaaway kaarkii hayay laakiin waxa aan qaadanayay kiniino iga jaray kaarka. markii aan isku arkay foosha ayaa odagayga ku yidhi bari waa qalin jabintaydii. waxa aan kala tashaday dhakhtaradaydii waxaana ii sheegtay in caafimaadkaygu 100% fiican yahay. waxaana iigu bishaaraysay inaan ka qayb qaadan karo qalin jabinta. labadii sano ee u dambeeyay waxay ahayd hooyo waqtigeeda ku qaadata gabadheeda 4 jira. waxayna diyaarinaysay shahaadadeedii labaad waxayna baratay cilmiga la tacaalida xanuunka autism-ka. waxayna sii raacisay sababta ay u baranayso oo ah in xanuunka ay dadka ay ka soo jeeda ee Soomaalidu u haystaan cay. waxayna tidhaahdaa sidan: si aan uga caawiyo dhakhaatiirtooda iyo weliba dugsiyada ay dhigtaan iyadoo ay dhinac socoto dhanka luuqadda iyo siiba ahaan dhanka dhaqanka iyo cidda ay aaminsanayeen ee ay baahidooda u sheeganayaan. dhacdadan ayaa waxay haween fara badan ku abuuraysaa ididiilo iyo in ay samayn karaan inta ay samaysay Zainab iyo weliba ka badan. haweenku waxa ay wax baran karaan iyada oo inan ah. waxbarashaduna waa qaabka keliya ee lagaga badbaadi karo burburka qoyska iyo isfahan la'aanta lamaanaha. Hodan Bahdoon, Saab TV.